kulan wacan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan mar kale ee muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa 8 masaajid oo ay qaramada midoobay ku baaqday in la ilaaliyo. inta aanan warbixintan guda galin follow dheh page-ka Maxamed Daawud Barre siina share garee mahadsanid. 8 masaajid oo ku yaala waqooyiga dalka Ivory Coast ayay hay'adda qaramada midoobay ee tacliinta iyo hidaha ee dhaqanka ee UNESCO oo aqoonsatay in ay yihiin masaajido qadiimi ah oo ay tahay in si gaar ah loo dhowro. masaajidan ayaa loo aqoonsaday in ay ka mid yihiin goobaha dhaxal reebka ah ee dunida. masaajidan ayaa la rumaysan yahay in la dhisay xilligii boqortooyadii Mali 7 qarni ka hor. dhismooyinkan ayaa ah astaan muhiim ah oo muujinaysa ganacsiyadii ka socday dhulka Saxaraha, ayaa lagu yiri qoraal ay soo saartay hay'adda dhaqanka ee UNESCO. masaajidan ayaa ku yaala magaalooyinka kala ah Tengrela, Kuto, Zoropango, Zamatigulia, Pengua, Kong iyo weliba Kaurara. masaajidan ayaa sida ay sheegtay hay'adda 20 masaajid oo si weyn loo ilaaliyay oo ku yaala dalka Ivory Coast. hay'adda UNESCO ayaa intaa ku dartay in boqolaal masaajid ay ku yaalaan halkaasi, kuwaasi oo jiray tan iyo horaantii qarnigii tagay. aqoonsigan ay hay'adda aqoonsatay masaajidan qadiimiga ah ayaa waxa ay ka dhigan tahay inay yeelan doonaan qiimo dhanka dhaqanka ah, isla markaana si gaar ah loo ilaalin doono. hay'adda qaramada midoobay ee tacliinta iyo hidaha ee dhaqanka ayaa waxay si gaar ah mar walba isha ugu haysaa aasaarta qadiimiga ah ee dhaqan iyo hiddo ay tahay in la ilaaliyo. guddiga hay'adda qaramada midoobay ee tacliinta hidaha ee dhaqanka ayaa soo saaray liiska masaajidan ku yaala dalka Ivory Coast. 8 masaajid oo ay hay'adda aqoonsatay ayaa qayb ka ah liiska 13 goobood oo dhaqan ahaan qadiimi ah. goobaha liiskan ku jira ayaa ku kala yaala Afrika, Asia, dalalka Carabta, Latin America iyo Yurub. German Era Cities oo ah goob ku taala waqooyiga Japan ayaa ka mid ah goobaha loo aqoonsaday in dhaqan ahaan ay muhiimad gaar ah leeyihiin. 4 ka mid ah liiska goobaha dhaqan ahaan muhiimka ah ee ay soo saartay hay'adda UNESCO ayaa waxa ay ku yaalaan Latin America.